hadda macdanta laga qodayo sanaag oo milxo iyo soonkeeda laga qodayo shirkado bareefada qodaya shaqaalaha ajnabiga la keensaday dad bareefada qodaya dawladdu roolka ay ku leedahay waa aad u yiri environmental problems badan baa jira godad waxa la qoday hadii boqolaal god waxay gaarayaan inta soo boqolaal mitir maalmo dad baa ku dhinta dad baa ku duma hadii la kula future waxay keenayaan lama yaqaan deegaanka u keeni karaan qaabkee loo ma jirta hab wanaagsan oo loo sameyn karo marka waxaan moodaa research-geeni inay hadda waxa ku soo biiray shalan arkayay goldigu kor buu u kacay Soomaali export-geeda goldigu awal xoolaha ugu badnaan jiray hadda goldigu kor buu u kacay laakiin goldiga dhoofaxay ka baxa cashuurtii saacid ma la mariya xagee mar aan waxaan aaminsanahay intii ugu badan informal way ku baxa inta ugu badan hadda fiirsa boqolkiiba 70 wuxuu tagaa EU goldiga ka baxa Soomaaliya kulina uu baxa imaaraadku taga waxa markaa waxaan haysanaa kalluun waxaan haysanaa xoolo inaga horta bal lacagta shinig la adduunka export import Soomaaliya markaad eegtid exportiga Soomaaliya waxa ay import garayso waxa la yiri sanadkii 2023 baan fiirinayay maalin dhaweyd 2023 Soomaaliya waxay import garaysay oo la soo degtay 8 billion badacad faaligoodu yahay 8 billion halka ay export garaysay 2.6 billion gaabka u dhaxaya waa 5.8 something waa trade deficit gaabka inta leeg baan ku jira resource-ga yar iyo cash-ka yar in haysano inagu hadda inoo ognahay shilinkan meesha ka baxay waxa ma sameyn karnaa inagu inaynu baahiyaha yarka asaasiga iska daboolo kalluunkeena la soo baxno xoolaheena localka isticmaalo si cash-ku inaga inoogu dhex wareego